oo proof aan helnay in la heli karo 1 milyan oo Soomaali ah 1 milyan oo Soomaali ah oo $1 maalintii inay bixiyaan diyaar ah iskaashatada kobciye iskaashatadu dhibka jira ee ay xal u raadinayso waa maxay taas waa su'aasha hore saas way iskaashatada kobciye waxa ay doonaysaa in ay wax ka bedesho faqriga isirka Soomaali ku habsaday ee dunidu la yaaban tahay mar waa abaaro ee Soomaaliya la soo gurmado marna waa fatahaado ee Soomaaliya la soo gurmado Soomaaliya ha loo soo gurmado arrin anaka noo qalanta maalin kasta ma aha dunidii wayna nacday magaca Soomaali haddii la maqlo waa laga dheeraadaa haddaad airport soo gasho ee baasaboor dhiibato Soomaali ma taal xaq u leeyahay sharafteen meesha ku dhunto xataa haddaad maal qabtahay waxa lu leeyahay naga siko marka horta midaas waa ka dagaalamaynaa waxaan rabnaa inaan naqan anagu kuwa siiya dadka baahan ee adduunka kuwa deeq siiya aan noqono maxaa yeelay malaayiin hektaar oo waxaan leenahay beera ah waxaan leenahay 63 milyan oo xayawaan xoolo oo macmoolay ah waxaan leenahay bad aan 3 milyan kilomitir square ka badan waxaan leenahay hawo waxaan leenahay باور بتقن عرك إيمانا وحصل ضل نقول إن توصلنا وعيب ندور سعرنا وعيب أنا بدأ نسك قادر بهين تاسوا عملتك واحد وحواي وحال يام مالجرينا يو إسكستكوا بعيد يام مالجرينا هوبن ونشك كجرين حدي يقولوا كادمو أنا أدور استمع له اسمع يقولوا كادمو وحكوا لسه كلام مجرى والو كلام مكره لكن أنا أدور قولي أتكتر وتور حيدا ولا بيري وحلا يقدر لكن يقولك أساسا هو سمع لقول السلوك تاعه وابين حالتك هل كان حكم مقدمرك مال قلنتا وحمال قلنا سومالي حتى مو واحد يدبوا النقطة سلوا فهموا مال قلنتا اسمش كي ما نيسو وبرضه وحي فكرين كشغيين 6 سنة كور أي بلابين inay ogaadaan Soomaalida ma kamid yihiin 1 milyan oo 15 milyan la sheegay kamida oo wadanka jecel oo Soomaalida islaamnimada run ka tahay oo wadankan in laga soo qabto gudaha ku dhacay laga soo bixiyo diyaar ah ma jiraan exploration aan sameeyay waxa noo soo baxday inay jiraan dad badan aan lahayn oo alaaf ah taa waxay nagu dhiirigelisay inaan ku soconno oo diyaarna marka habkii waxaas uu gaari lahaa waxa maalgelinaya marka waa Soomaali cid kale wax loo weydiin maayo Soomaaliya bixinaysa waa $1 haddaan 1 milyan helno maalinta waa 500 oo kun waay bishina waa 15 milyan 15 milyan mu'assasa ay soo galayso ama hay'ad ay soo galayso shaqo ay san bishi mashruuc asaas kan ma jiro mashruuc ay qaban kan ma jiro haddaan ka badan 2 milyan gaarna maalinta milyan waay 30 milyan noqonaysa adiga ka qiyaas qaado dad lacag intaas ku keeni kara $1 kaasuna أنا أركي ميز أنا أركي ما قف أركي مال وحنا صورة بحنا لكن واحد معنا وفردي هذا بحنا حتى لكن واحد معنا لو مفردي قيمة نص صار لكن مركا سوت تجنو وأنا إلهي تونا أمر وتعاونوا على البر والتقوى هذا سوت تجنو وحنا قلنا أودا نقولنا مركا وحنا أجاني وبروف أن هلني إلا هلي كرو 1 مليون أو Soomaali 1 مليون Soomaali أو $1 maalintii in bixiyaan diyaar ah taas ogaan marka waxaan rajo ku qabnaa inaysan suurtagal ahayn noqon doonin in la waayo maalgelin marka waxa baxay Soomaali cid kale wax loo weydiima waxa kale oo su'aal yaa xubin ka noqon karo saacid biyo waxa waa iska furan waa open waa waxay ku xiran tahay dalal la yiraahdo International Cooperative Alliance ay member ka noqonaysaa insha Allah waxa waaye waa open qofku uu soo gali karaa markuu doono lacag u dirsan karaa markuu doono ka bixi karaa wax qof lu qasba ma jirto waa free xurriyad aanu soo galaa xurriyad looga baxaa qofku markuu soo asaanba ka bixi markuu arko inuu asagana shaqo ka helay faa'iido soo noqonayso discount oo ka helay markuu wax gadanayo oo noloshiisa isbedeshay oo qof noloshiisa asagu dhisanayo oo cid bari waa ka baxay موسم waxaa loo taray in lagu soo qaado dadka ugu liita Soomaalida oo kawan caseeyaha iyo kanshaha karanaya iyo midka yani dhibka ku jiro in lagu soo qaado hatta waxaan noo qorshaysan insha Allah in zakada la siiyo qofka bixi waay oo la soo saaro mataqaana tareenka aan noo qorshaysan insha Allah marka quban waxa ka noqon karo qofka soo isir Soomaaliya isirka soo Soomaaliya hadii hatta hooyada ay Soomaali tahay ama aabuhu Soomaaliya ka mid noqon kara darsan kara waa meel soo joog اوكي تعال انك تقول له هل حبا ايه مركه هل بوينتان هلا مركه سيدي لو معموليا استعداد كبعي سؤال كلا
see loo maamulay waxa dhammo la isku dhaafay oo dhib ka yimaaday oo lagu diray oo lagu kala tegay waa maamulka maarin Soomaa waxa weeye anaka hadda aan idin la hadlayno horta waxaan nahay 5 qof oo maamul jirto aniga professor Rashid qorane Abdulqaadir Shir Amaan waxaan nahay dad maamul ku jirna oo hadda faraha kula jirana laakiin anaga ku meel gaarana yaa maamulay professor Fido Allah caafimaad wadnaha il professor Fido waxaa jira marka see loo maamulaa see loo maamulaa waa arrin aad u xoog badan oo muhiimad weyn la waaye habka technicalka injineer Cabdulqaadir ka hadloon laakiin aniga waxaan ka hadlaa kaliya sida uu dhismi doonto maamulka kobciisa u ismaysmi doonto ismaysnaya horta waxaan wuxuu ku beesgaraysan iskaashan degmooyin gobol kuma degmaysan kuma shaqo ma laha state shaqo ma laha waa degmo waa region kasto degmooyin ku yaala degmo kasto inta qof oo xubinka ah la fiirinaya meesha xubintaas ka imaanaysa dadka degan ayaa soo dooranaya qof ay aaminsan yihiin akhlaaqdiisa aqoontiisa amaanadiisa diintiisa iyaga soo dooranaya markay soo doortaan qofkaas wuxuu ka mid noqonayaa golaha sare wuxuu ka mid noqonayaa kobciye cooperative ama iskaas kobciye mid noqonaya dadka haday noqdaan 100 200 soo ahayd ma waxa gudigaas sare asmaysmaayo oo ah gola sare ah oo maamulayo iskaas kobciye macnaha waa golihii sameynayay go'aanada budget saxiixay wax ka soo mataqana la fulinayo qawaaniinta cusbad waxa Allah sharci loo baahan yahay ansixinayo budgetka soo dhaafay kan loo socdo kulli ansixinayo waa mashaariicda ansixinayo walahaas waxay sameeyaan gudiyo hoose oo ka hoos imaanay maxay gudaas waa gudiga مثلا xisaab xilmi oo kale tood gudiga shuruucda oo kale tood gudiga khilaafaadka oo kale tood yaani gudaba waxa imaanay hadana board of directors sameeyaan oo hoos u imaanay board of directors shaqada maxaa waa inay maamulaan executive dadka wax fulinayo oo maareynti mashaariicdi waxaas dadka maamulay iyagana maamulay marka total maamul isku xiran min top ila hoos oo waxa jiro ilaalina waxaas habka oo amaan u yahay waxa way inaan isticmaalno system bunuugta ka isticmaalna lacagteen markaan bank u dhiibanayno waa gol laakiin qof maal qaban lacag ma dhiibanayno laakiin bank waa aamin koos xajir shuruuc ajta nidaam ma jiro hab loo dawlad nidaamka ku shaqeynaysa kobciye exactly waa kan bank ku shaqeynaa marka maamulka saas uu imaanaya waxaan rabaa marka inaan inta soo gaabsho waa laga dambeeyaa waana mahadsantihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh